dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in wixii hadda ka dambeeya ay hogaamin doonto jihada howlgalka xasilinta ee Midowga Afrika ee Soomaaliya iyada oo si cadiirada u saaraysa ilaalinta gobonimada Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya. War-saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya oo ku qornaa luqadda Ingiriiska ayaa waxaa lagu cadeeyay in Soomaaliya ay awood u leedahay in ay go'aan ka gaarto dalalka ciidamadoodu ay ku biirayaan howlgalka cusub. Marka aanu ka gudubno ADMIS oo aan la wareegno howlgalka xasilinta Midowga Afrika ee Soomaaliya, Soomaaliya waxa ay hogaamin doontaa jihada howlgalka iyadoo si cadiirada u saaraysa gobonimada iyo madax-bannaanideeda, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya. Waxaa kale oo lagu sheegay war-saxaafadeedka ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya inta aan isu diyaarinayno wejiga xiga ee nabad ilaalinta ee hoos imaanaya howlgalka xasilinta Midowga Afrika ee Soomaaliya. Waxaa lama huraan ah inaanu mar kale ku celino in Soomaaliya ay tahay dal madax bannaan oo awood